dhexdiisa inuu suuratul ikhlas ku akhriyana waaba sunnaba والموالات حريرين با شرطي لبدا خطبه الا حريريو كو وا شرطي horta khudba walba inaad xiriirisid dhexdeeda waa shardi kalimaadkeeda inaad xiriirisid khudbada koowaad markaad la imaanaysid ha aamusin labada khudba isla yani khudbada mawaalaadkeeda ilaali khudbada kalimaadkeeda isla xiriiri khudbada koowaad markaad dhamaysid iyo khudbada labaadna xiriiri oo isla xiriiri ayadana waa mawaalaad kale waxaa kaloo lagaa rabaa labada khudba markaad dhamaysid iyo salaadana waa inaad xiriirisaa macnaha saasaa lagaa rabaa walmawaalaatu xiriirin baa shardi ah hoos wuxuu kaa yidhi soo maaragti ay bayna alkhudbatayni la xiriiriyo wa baynahumaa iyo wa bayna salaatina la xiriiriyo fa in daala alfaslu hadduu dheeraado curfan istanafa markaas haddaada xiriirinin oo dheeraadid haddana khudbadii inaad soo celisid bay kugu noqonaysaa wa salaatuljamaacati iyo wa salaatuljanaasati fardu kifaayatin walciidaani iyo walkusuufaanina iyo walwitrna sunanun oo mu'akadaatun waayahay halkaas iska joogaati